عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتكن سلام يا walaalyaal meel kasta aad joogtaan oo guleed iyo video kale maanta waxaan rabaa insha Allah kulay fiidiyoyada arrimaha bulshada badan kaga hadlaa anagoo qofna taageeranay laakiin aan reaction ka bixinaa marka maanta waxaan rabaa social media ka aan maalada la baxday macaan xaliye waliba rag u bixiyeen macaan xaliye ayaan rabaa fiidiyoyadiisa inta ugu caansan bal inaan eegno mees weydiisa wiliga maxay tahay sababto ama ma jirtaa sabab riixaysa ninka dhalinyarada ah inuu dumarka markaste jokes ka sameeyo soo marka qaarna aflagaadeynaya wax walba maanta halkan aad ka ogaan doontaa insha Allah bal ay fiidiyoyadiisa kuwa ugu يعني براب برشة آد كو قبصدي بل أي دول استاغنو فيديو غو هرية أو كاسة أيرنا إن شاء الله إنك فرعنو أوسان دالين أفرعنو أو أوسان إساقو دالين بوكورنا يا ما حي تاي فائدة دكو وجبتن إن هانا تكون سعيال هذا دالين اللي أدوك متهد محل نيشي ماشي حنانا دا عيالكي ما حي تاي ماشي دي كرام وسكري ده شراء رانتي فيديو سوا فيديو كوميد با كهريما كان waa kalabaad inta ugu badan baraha bulshada waliba siiba TikTok lagu hadal haynta badan yahay hadaba waxa jira si cilmi ahaan in loo hadla fiican inaan kale waa laba ama inuu yahay qof raba inuu sidan caan ku noqdo ama inuu yahay qof noloshiisa yani ay nolosha kale bini aadamku ka duwayeen salaan qofkan inuu qof xanuunsan yahay ama qof stress hayo kale ama qof si family problem haysto kale maxay leeyahay fahmi kana qof markuu family problem haysto runtii wuxuu u hadlaa si emotional anigu waxaan lahaa rayahanteeda inuu jiro family-giisuna isku soo xumaadeen oo kale ama in depression ama stress xagga maskaxda ku jiro ama in ay tahay ورابو إنه برامجيدا dumarka ku caay inuu suuqa ku soo galo si loo barto laakiin waxa jira fiidiyoyaal kuwa ka daran adu badana jokes bay u badan yihiin jokes yani waxa la dhahaa inuu muxuu ahaa kaftan buu badan yahay bal mid kale ayaa jira aanu rabnay inaanu eegno kan kale ma eegno naagahan mooryaanta ah oo dhan guur xataa diyaar uma markii adiga konton ka qaado 6 oo kalena ay ka qaado min 100 waa meeqa waa 650 iyadoo shaqaynin fadhigeedaas af Soomaali kaliya لحبقول يكون دبيه ليسا كان كمان وحو كغا خالدي أسلا دومارك لكن واحد مدعين فيديوياش سماركات سي او ايكتو اما آد او فيرساتو إنو جيران عدادس هايستا محايلة مركزتو فيرسو قف أداد ايكتو قف اسماعين سمانيا السولان يا دادك كدا دعنا تقصلي سلاكين عن قصلين مركا رانتي ninka odayga dhalinyarada waxaan u maleynay inuu jiro maskaxda inuu ama xoogaa maskaxiyan oo xanuunsan yahay badan aad u fiirsato fiidiyoyadiisa wuxuu ku duubayaa meel cidla oo aad moodo in qofkani uu rabo inuu bulshada badan ka yara dhex baxo sidoo stresska ama waxa cadaadiska ku jira oo isaga soo saaro aniga ahaantii saas ayaan u qaatay guuladaan adiguna kulli si kala qaadanta maxaa yeelay عشرة أما هذا الله وبحية بدنا أي دليرتنا بحية مع الحلية هذا الله ومركز تستعمله يوم ومركز وضم بس مركز بدنا عارف لا وضم فاك أما هذا اليرو إنجليش عايا تاسنا هكذا نقطة إنه يهقف ولا يسحيستو أو ربع إنه متوقع أما يعني قف ديبريشن هيستا ما ستريس أو كلام ولا شيء عريري كتيرة عريري أو ربع بالإنه بالوحن هيا أو هالمر تبدأ كانوا marka fiidiyo kale ay eegi doona insha Allah markasta oo fiirso bal ninka odayga kan waxay kuleeyeen niyo gabdhaha lacag waan siiyay oo soo gabadh Soomaaliyeed maaha adigu waxa tahay daawinta gabdhaha Soomaaliyeed lacagtaada qiimaha kula yeelato okay jooji waxaas kan wuxuu ka hadlay xagga dhaqaalaha waxyaalaha ugu badan uu ka hadlo ninka dhalinyarada waxa kamid ah koow dumarka single motherka ama dumarka noloshoodii hore ka soo xumaatay waxa kale uu ka hadlaa waa xagga dhaqaalaha marka fiidiyogan imika uu dhaqaalaha ka hadlayo fiidiyo badan oo noocaas oo isku mid ayaa jira oo xagga dhaqaalaha uu ka hadlo marka waxa is oran karaa ninkan hablo badan baa wax ku sameeya shaafta badan ama hablo badan baa noloshiisa waagu
hadda ka hor de imika nin wuxuu noqday isagii wax bixiye oo cashara bixiyo wax laga qaatay laakiin waxaa maleeyaa dumar badan waxaa jira xarfaana oo waxaan kugu idhaahday dee bahasha iyada ah odayaasha ka gura marka waxaa maleeyaa xariifkani hablo badan baa intay saa usoo dhigeen dee xagga dhaqaalaha yani nolol bad oo jeebkiisa sidaa loo gurtay video kale loo arkayo isagoo dhaqaalaha ka sheekeynaya oo inan baa waxay ka waxay inuu universal ahaabaan u malaynaya weliba ayaa waxay ka sheekeynaysaa bal habka ninka dhaqaalihiisa loo kantarooli karo wax saasa bal videogii kale bay deedeynaa kan kala baleen calaamadaha ragga la haystayaasha lagu yaqaano waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa 4 beri buu naagtan qabaa kadibna wuxuu wataa shaati u eg diriceeda awow yaad u cadaynaysaa inaad isqabtaan mise iskuul ay leedahay adigu ku biirtay kan wuxuu ka hadlayaa horta waxani labada qof ee istoortay nolosha muhiim maaha يعني noloshooda inaad adigu gudaha u sii gashay laakiin labada qof waxay isku afkartaan baa muhiim ah salaan aniga gabadheeda haddaan isku afkarno inaanu garankaygan kalo cas iyana dirac cas xidhato waa caadi waxaan waa afkarasho noloshu maaha jokes ka odagu sheegay inaad korta qaadato kow adiga ilaha waxaan dhalinyaro badan oo ninka odayga markasta committee usoo qoraya hore u soco wax saasa runtii adigu maalmaha kamid ah noqon doonta family ninka dhalinyarta committee soo qorayo ogow maalinta in committee-da soo qorto mar kamid ah maalmaha kamid ah qofku xasuusin doona ama kugu soo qaadi doona waa nolosha privatekii yani ma wanaagsan inaad social media inaad hadal ka tiraado dabadeetana aad lacala adigana hadhow si negative aan kugu saameyso aniga ahaantayda guuleed raantii ninkan totally waan kasoo horjeeda waxyaaluhu sheegayo gabar Soomaaliyeed oo 4 ciyaal haysta tusaale ahaan oo guursatay dawala dhibka adiga yani ku haystaa muxuu bas waa ina walaashaya oo qurbaha joogta tusaale ahaan oo aad caawisay ama hadal ku sii dheeraan waxaan ku oran lahaa nino wala noloshaada privatekaada shakhsi ahaan xor ah ama gabadh isku shaar xidha shaarkaaga iyo diracooda isku ekaadaan ama gabadh lacagsi ama yaad siin taas adiga ku taala laakiin ay hadda waxaan lahaa ninkan odayga hadaladiisa ayaan jarka tuurin walaalo bal video kale dhigi doonaa si wuxuu arkaysaa naag 29 28 30 jirta oo habeen kasta hooyadeed ugu ducayso ilaahay oo ii keen nin iga guursada nin baa la soo hadlaya wuxuu leeyahay see tahay xaaladda ka waran maxaad haysaa qof yahay waa kugu haystaa shukaansi la galaya qofta war waxay ka bilaabaysaa numberkayga inta ka keentay sister numberkaaga masaajidka xataa hooyada waa geysay aabaha odayaasha ula fadhiista dhan waa u sheegay inaad guur rabto stop that shit please video kale horta marka si loo eego ninka odayga wuxuu leeyahay aniga anta marka si loo eego videogan wuu leeyahay saxsan yahay maxaa yeelay dee walaal gabadhay horta dooquna waa gooni dee iyo calafkuna waa gooni dee haddii ilaahay calafkaaga maalintu ka dhigumad guursanaysaa waa sax calafkaaga markuu yimaadaba adna dooq bay kugu xidhantay marka dee qofka hadduu awoodina inuu guursado way fiican tahay dee maxaa yeelay waa sida diintuna farayso marka gabdhow haddii ay jiraan dee gabdho badanoo way jiraan kolley sida adigu ka hadlayo sugayo dee nin lacag leh ama dooqooda adigu kolley qofka dooqiisa sugaya laakiin guuro badanoo loo soo bandhigana diiday horta kelmadihiisa qaar inay sax yihiin baa umalaya laakiin ani ahaanteeda waxaan odhan lahaa ragow ninkan odayga ayaa hogin yani yuuna jirayda ka tuurin oo hadaladii intaas isticmaashaan dabadeetana faamilyo badan ama dad badan oo isku wanaagsanaa odayaal badan oo faxalla ahaa ninkan markay dhegeystaan waxaa laga yaabaa inay hablihii ka jaraan caanihii horse ayaa la sameyn baa odhan lahaaye hablaha ha la ogaado runtii maxaa yeelay inantu waxay u baahan tahay baahi ka badan inanka waxyaalo badan oo shmuugs ama waxyaalo badan oo isqurxinaya isticmaashaa waxaasna waa lacag runtii qofka haddaanu shaqayn markaa inaad caawiso way fiican dad hayso waxaa arkayay dumar badan oo garoob ah oo in ka badan 1 jeer la furay oo bixinaya talooyin la xiriira guurka iyo xiriirada siinayana gabdhaha yaryar laakiin adiga maxaa lagu furayna videogan
wuxuu isa soo saaray markan ninka odayga ah farxiyo cabsiye ama ina cabsiye oo runaantii uu ku dhag hadlayo si maaldahanna uu fariintan u gaarsiinayo maxaa badan iyada ayaa xuquuqda dumarka u dooda ninkan odaygina wuxuu leeyahay waxaan u doodaa xuquuqda ragga marka isaga